السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته والله شرفت يا ماموس كمدن آدبان إني سلامينا وقت وعاني نور القروح فدنبان إني رجينينا يكسو دواد كنال كينا عافيماتك دكترك عافيماتك غيسك انتينا بلابين موضوع وحين واديسكو حسوسنينا كنال كينا وحاو كتشوابا أما مركز توهي لن يهي وهربيتانكا iyo baahida shacabka iyo dadka inagu xidhan iyo guud ahaanba bulshaweynteena Soomaaliyeed xusuusna xaq ayaad u leedahay xilli kasta inaad waxa aad tabaysa aad inoo soo qorto waa mid aynu isku dayayno sida ugu fiican ee ugu dhaqsaha badan inaanu kaaga soo baahi tirno arrintaas oo khusayso arrin caafimaad ha ahaato qiso markaas psychologically u baahan in lagaaga taliyo iyo arrimaha noocaas sababtu waxa uu aasaasan yahay kanaalkeenu waa inuu ka jawaabo baahiyaha ka imanaya bulshadiisa arrinta inaad xusuus weyn u yeelana ayaa muhiim xilli kasta iyo waqti kasta waanu arkaynaa kommentiyadiina aad nagu dhiirigelinaysaan aadka u quruxda badan iyo inta badan su'aalaha aadna soo weydiisaan oo sida ugu macquulsan uguna dhaqsaha badan aan uga soo jawaabno dhinaca commentiga iyo dhinaca gmailka labadaba haddii aad tabayso su'aal aad ku xadan xantaynaysa oo qalbigaaga laga yaabo inay la qalan dhacaynayso waad noo soo sheegi kartaa waananu kaaga soo jawaabaynaa haddii Ilaahay ka dhigo aynu ku soo dhawaano maanta clipkan waxaynu ku soo qaadanaynaa ama aynu ku eegaynaa caafimaadka cadaynta iyo quruxda ilkaha ilkuhu waxa ay ka mid yihiin faayaha qofka ibn aadanka Ilaahay ku kaladay waa meelaha ugu quruxda badan ee qofka laga dheehdo nashaadkiisa firfircoonidiisa caafimaadkiisa iyo nadaafadiisa waa mid runtii markasta iyo xilli kasta qof kastaaba uu ku riyoodo isla markaana uu waqti ku bixiyo inay ilkihiisu qurux badnaadaan sababtoo ah qofka ilkaha qurux badani waa qof ku raaxaysta isla markaa ku xaragooda marka uu qoslayo sheekaynayo sidoo kale ilkuhu waxa ay ka mid yihiin laf dhabarta quruxda qofka سالاتشيكد وامد لغا مارمانا مركستا inaynu isku tilmaamno caafimaadkooda cadayntooda iyo quruxdooda waa kariibkeennuna taas ayuu maanta xooga saaraya aynu doonaynaa inaynu iskugu iftiimino waxaynu dabcan ku soo qaadan doonaa clipkan 3 item ama 3 compound oo mid waa sinjibiisha midna waa liinta midna waa caanaha sidaas runtii waa laga yaabaa markaad aragto saddexduba meelo kala duwan bay noo dabooli doonaan oo way isku sheegaynaa haddii Ilaahay ka dhigo waxa runtii aan xilli kasta iyo waqti kasta aan xasuusta xilligii dhalinyaranimada lahaa waxa jirtay wiil aanu dhalinyar ama xilli waqti aanu soo wada qaadanay aad haybad aqoon iyo farxad u leh muxuu laakiin dibtu ahayn hal ilig baa ka dhaawacmay ama ka jabay xilli kastoo la kaftamayo ama marka la sheekaysanayo waxa dareemaysaa wiilkaasu inaanu qoslayn ama marka uu qoslayo afka isku qabanayo yacni arinta noocaasi mararka qaar qofka waxay ku abuurtaa psychological damage farxadda qofka ayay ciriiri galisaa way caburisaa oo qofku waxa laga yaabaa inuu neefta dub iskugu celiyo la sheekaysiga iyo la faraxsanaanta iyo la baashaalka dhalinyarta ama qofku bulshada ku dhex jiro ayaa laga yaabaa mararka qaar inuu cuqdad ka qaado oo arintani ay kuba abuurto inuu gooni socod noqdo si uu markaas aanu u sheekayn ama afkiisa u dabool haddaba waxaynu xusuusaha isku xusuusinaynaa qofku inuu ilaashado caafimaadka iligiisa quruxda ilka isla markaa cadaanta iliga inuu ilaaliya waa mid waajibaad oo runtii dhakada inaga saaran oo aan la hilmaami karin aynu ku soo dhawaano ilika 3 arrimood baa ku dhaca oo runtii la kala yahaa tiirin wiirin iyo weekend saddexdaas ayaa ku dhacay iliga saddexda dhibaato ilika ku dhacaynu doonaynaa markaa inaynu kala qaadno waxa kale oo jira waxa la yiraahdo lucis oo iliga iyaduna runtii saamaysa ama daxalow ama linka iliga fuula oo runtii qofka muuqaalkii iliga iyo cadaantii iliga bedela taana iyaduna waa ka hadli doona haddii Ilaahay ka dhigo haddaba saddexaynu tilmaamnay lahaa tiirin wiirin iyo weekendka iliga ku dhaca maxaa keena inta badan arintaas waxay ku timaadaa marka tiirin iyo wiirin ay dhacaan waa marka iligii rifmo ee dhuubnaado ee uu soo baxo almost waxa lagu arkaa dadku markay aad u waaweynaadaan ayaa ciridkii baa gudaha galaya iligii baa rifmaya hareeruhu ka soo dhuubanaya wuxuu ka soo baxaya markaas ruudkii uu ku fadhiyay oo dabada ayuu soo baxaya isla markaa isagoo dhuuban oo qarayar ayuu soo baxaya
way kala fogaanayaan oo waxa ku dhacay rifan iyo lisan isla markaas ruudkii ama salkii uu ku fadhiyeyna uu ka soo baxay oo salkiina hoos buu u galay iligina dabaduu soo baxay. arrintaa inta badan laba arrimood baa sababa. qofku marka uu age-ka noqdo ama age period-ka marka la gaadho way sababtaa. waxaa kaloo sababa inay marka ay ka jirto in vitamin C deficiencies iyo calcium deficiencies wax la yiraahdaa inay dhaceen oo vitamiinkii uu ku yar yahay qofka la C-da ee lafaha iyo bone marrow-ga iyo immunity-ga qofka aadka uga shaqeeya iyo calcium-tu inay ku yar yihiin. labadaas ayaa waayo qofkii oo yarba xilliyada qaar waxa arkaysaa ilkihiisii oo feedhmay isla markaa soo baxay oo guntiiba ay soo baxday oo aad moodaysa inay tamar darnaadeen oo runtii ay daciifeen. arrintan aynu tilmaamnay ee la yiraahdo vitamin C deficiencies-ka iyo calcium deficiencies-ku waxa kaloo ay samaysaa markii labadaas qofka ay aadka ugu yar yihiin ilkiisu inuu weakening galo inuu daciifo oo hadday qof islaayaan ama uu meel ka yara dhaco ama gacantiisaba uu ku qabto ama uu cadayanayo ilkihi inay soo daataan ama ay jabaan. arrintaasina way timaadaa si laajigeed aynu doonayno 3 arrimood markaa clipku xooga saaraya. 1 waa caafimaadka, 2 waa nadaafadda ama cadaynta iliga iyo quruxdiisa, 3 quruxda iliga. intaas aynu runtii aynu kaga hadli doonaa. haddaba sinjibiisha aynu ku horeyna ama aynu soo qaadano. sinjibiishu waxay leedahay wax loo yaqaan Gingerol substances. Gingerol substances-ku waa walax ku saamaxaysa iliga inay ka ilaaliso bakteeriyada iliga ku nool ee dhaawacaysa isla markaas inuu iligu ku ahaado mid ruudkiisa uu yahay mid healthful ah oo markaas bakteeriyadii damage gareynaysa ciridka inay ka qabato. waxay kale ka qayb qaadataa wax la suusin inay abuurto oo linkaxa adag. dadka qaar ba waxa jira iligooda waxa fuula ilkahooda waxa fuula linkax adag oo laakiin aanay u dhalan ama markaas wax la yiraahdo in ay ku daboolmaan muuqaalkii iliga ahayn dadka inta badan balwadaha iyo waxa leh. haddaba substances-kan powerful-ka ama walaxdani waxay iliga u saamaxdaa in linkaxa adag ama sigaarku ku reebay ama waxyaabaha kale qofku isticmaalaya ku reebay inay ka jarto oo iligu cadaado oo caafimaad fiican uu yeesho isla markaas bakteeriyadii ciridka ka xumaynaysay ee ciridka waxyaabaha ku hadha almost iyo iliga dhexgalaysay ee kugu abuureysay qofku inuu markaa neeftiisu ay bedelnaato ama aan lagu reexaysanayn qofka ay ka timaado ayaa iyaduna meesha ka baxda. waa faa'iidada caafimaad ahaan ay leedahay. caafimaad ahaan bay leedahay iyo bakteeriyada inta badan harmful-ka inay nagala dagaalanto. waxay kale oo leedahay iliga inay noo cadayso inoo qurxiso. haddaba haddaynu u nimaadno dhaawacyada iliga gaadha rifanka iyo lisanka uu qaado iyo iligu inuu fagmo oo ka soo baxo markaas ciridkii ama ruudkii uu ku fadhiyay iyo salkii uu ku fadhiyay oo dabcan aynu tilmaamnay inay sababaan qofku ay ku yar yihiin macdanaha aynu tilmaamnay ama fitamiinadaas vitamin C iyo calcium-tu halka uu ka helaya ayaynu iyadana isku tibaaxayna oo soo qaadanayna. wuxuu ka helayaa qofku oo runtii meelaha ugu fiican ee uu ka helaa ay ka mid tahay ta koobaad waa vitamin C. main sources-keedu waa liinta. liintu 2 arrimood baad u isticmaalaysaa. liin dhanaanta caadiga iligaaga inaad ku cadaydo oo runtii inta tuujiso aad ku cadaydo. sinjibiishana inta iyadana budaad ka dhigto labadaba aad ku cadaydo adigoo si taxadaraada oo markaas aad u degan iliga u marinaya oo runtii ku wareejinaya. muddo badan iyo waqti badan aad raaciso iliga way ku adkaynaysaa awoodiisa iyo tamartiisa iyo caafimaadkiisa intaba sare ayay u qaadaysaa. waxa kale oo jira runtii dabcan oo iyaduna muhiimadeeda leh isla vitamin C markaad u baahantahay liimaha cabitaanka ee sida liin macaanta iyo liimaha la shiida aad u qaadanaysaa. iyadana waxaad ka helaysaa inaad ka hesho markaas vitamin C aad u badan oo iligi ku adkaado lafihii ku adkaadaan caafimaadkii lafuhu aad runtii uu sare ugu soo kaco. arrintaana inaad runtii dhugteeda aynu u yeelano bulshadeenu ayaynu ku sheegaynaa. calcium-ta oo runtii iyaguna lafdhabarta u ah lafaha iyo ilkaha halka qofka uu ka helayo ayaynu iyadana isku tilmaamaynaa oo runtii bulshadeena in badan ay ku baraarugsantay oo ay dareensan yihiin. waa caanaha. caanuhu waxay runtii qayb lixaad leh ka qaataan xilli kasta iyo waqti kasta aad isticmaasho inay lafahaaga ay kobciyaan
straightness waxa la yiraahdaa ay u sameeyaan strong ay ka dhigaan ay adkeeyaan isla markaa ay adahaato enough calcium inaad yeelato. arrintaasi waxay ku saamaxaysaa iligu adigu xataa qof weyn oo daada 60meeyaha 70meeyaha ilaa 80meeyaha gaaray inuu iligaagu dhagaxa kala jabinayo. haddii aad laba isticmaasho iligaagu caafimaad aad u weyn buu heli doonaa. waa vitamin C oo aynu meelahaynu tilmaamnay resourceska liimaha laga helo iyo sidoo kale calcium taamacaanaha qofka la saaxiiba wuxuu cuni karaa isagoo 80 inuu hilibka iyo awoodda iliga uu leeyahay runtii ka qayb qaato. iligaaga horu dhamaada runtii waxa uu baabiyaa quruxda qofka. waxa kale oo meesha uu ka saaraa quruxda aad uga daran waxa meelaha ugu faraha badan ee cuntadeena meesha ugu badan ee lagu ridqa ee aynu kala soo baxno nafaqada ee ridqda ugu faraha badan ay ka dhacdaa waafka. haddii iligu markaa uu dhaawacan yahay ka saarin maayo cuntada nafaqada. halka waxa dhacaya inay markaa cunto badan runtii iyadoo sideedii u socota la raaciyo qaybta waste productiga oo markaa nafaqadii aanay runtii ka bixin ama muddo badan ay qaadato oo runtii dheefshiidku uu ku silco oo waqti badan uu ku qaato inuu kala saaro cuntadaas oo runtii nafaqada ka saaro oo qulqulka dhiigga iyo markaa streamiska inoo raaciyo qaybta kalena qaybta qashinka inoo raaciyo. markaa dheefshiidkii ayaa ka dhaawacmaya oo dhibaato ka soo gaaraysa qofka inta badan ilkuhu ay ka taag daran yihiin ama ay daciifka ka yihiin. arrinta inay bulshadeena dhug weyn u yeelato ayaa muhiima. markaas ku cadaynaysa ama aad ku cadayayso waxaad u soo qaadanaysaa aad baad u tumaysaa sinjibiisha. waa tumaysaa markaad aad u tunto waxaad ku dari doontaa liin dhanaanta ayaad ku tuujinaysaa. si caadi ah ayaa ilkahaaga ugu cadayaysa. waxaad dareemi doontaa 3 arrimood saynu tilmaamnay. linkaxa adag ee ilkaha isku xidha ee madoobeeya ee markaa foolxumada u yeelaa inuu ka baxo oo ilkahaagu ay ku cadaadaan oo ku qurux bataan. waxa kale oo dabcan ay kala dagaalamaysaa arrintaasu bakteeriyada iyo ciridku inuu markaas u dhigay wax la yiraahdo sameeyo ama iligi iyo ciridku inay ay ur ama riix aan qurux badnayn ay ka soo baxdo. intaasba way kala dagaalamaysaa. iligoo caafimaad iyo qurux ku yeesha bakteeriyada ay ka dhimato af wanaagsan oo riix qurux badan oo lagu raaxaysanaya ay ka soo baxayso ayaad heli doontaa. fadlan la sii wadaaga oo si sheer gareeya bulshada kale inuu jecelnay kale inay ku soo biiraan. idinkana waqti wacan iyo nolol fiican baan idin rajaynaynaa mar labaad iyo caafimaad taaba. waxaa su'aalo qabtaan ee mowduucan iyo mowduucyada caafimaadka iyo kuwa bulshada iyo talooyinkaba ku saabsan comment ahaan ugu reeba. mar labaad ayaa salaanta macaan ee diinta islaamka aanu idinku dhaafaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.